haddaad iibsanayso buskud waa inaad iska fiirisaa taariikhda dhicitaankiisa. dheydka meeshaasi saaran dheydkii originaalka ma ahan, waa dheyd koobiya Soomaali saaranta. keliya uma furin yani meeshaasi oo daawada uu ka gadaa uma furin in naf ku badbaadiyo, wuxuu u furay inuu lacag helo si naf uu u gooyo. yani Soomaali sida badan wax ma akhriso waxna ma qorto. waxaad arkay bur oo 3 bil 4 bil ka hor dhacay oo yani dadka la siinaayo. waxaa arkay baasta 5 bilood ka hor dhacay dadka la siinaayo. waxaa arkay bariis 7 bilood ka hor dhacay oo dadka la siinaayo. waxaa la rabaa dadkaasi naftooda in lagu baabi'iyo oo yani laga takhaluso oo la dhibaateeyo oo la dilo ayaa loogu talagalay. soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran page-keena Abubakar. fadlan haddaad ku cusub tahay nasoo follow garey, like garey videogan. like garey video. like waxay naga caawinaysaa video inuu meel fog gaaro. aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. shartana ka ilaawin. maanta waxaan idin wadaa wax adiga naftaada ku badbaadin karto, waalidkaaga naftiisa ku badbaadin karto, ubadkaaga naftooda ku badbaadin karto. haddaba maxay yihiin wax aniga aan idin wado oo aniga aan kuu wado oo adiga ku badbaadin karto naftaada, dadkaaga iyo ubadkaaga. haddaba waxaan beryahan soo batay, yani horay u jiri jirtay laakiin hadda dadka badan ay ogaadeen in expireka yani Soomaalida waxyaabaha ay keento ama soo dhoofsato ay yihiin wax la saaray. sidaas maxaa kuu dhahay? yani waxaad aragtay dheed ama tusaale baasta ama daawooyin ama iisheegadiyo cuntooyin aad arkayso meeshii dheedka expireka iyo waxa meesha ay ku qoran yihiin. haddii sidaan aad samayso yani suulkaaga aad ku riixdo way tirmayaan. marka misweydiisay sababta sidaas uu tirmayaan yani oo dheedkaas? maya, sababta sidaas yani uu tirmayana waxay tahay dheedka meeshaasi saaran dheydkii originaalka ma ahan, waa dheyd koobiya Soomaali saaranta. yani tusaale haddii farmasi aad tagto ama daawona aad soo iibsanayso, haddii tusaale aad aragto 2 bilood ka hor daawadaas inay dhacday, waxaa lagu leeyahay yani aad dhahdo iyo daawadan waa dhacday, waxaa lagu dhahayaa aamus. yani aamus wuxuu ku leeyahay wuxuu rabaa inuu badeecadaas meesha u saaran inuu ka macaasho. keliya uma furin yani meeshaasi oo daawada uu ka gadaa uma furin in naf ku badbaadiyo, wuxuu u furay inuu lacag helo si naf uu u gooyo. sidaas waxaa ku dhahay hadda kaniina tusaale, yani Soomaali sida badan wax ma akhriso waxna ma qorto. sidaas waxaa ku dhahay kaniiniyaa lasoo gadaa, kaniini oo dhacsan. qofku markuu soo gato uu iska cunayaa, wuxuu leeyahay uu ka caafimaadaysa. tusaale madax xanuun camal ama yani sheegadayo calool xanuun, ada kaniin waxbaa lasoo siiyaa. marka lasoo siiyo kaniinigii oo cuno, kelyahaba fariisanaya. cudur aan haynin, cudur kasii darana buu imaanaya. maxaa sababa marka? waxaa lasoo siiyey kaniini dhacay ayaa lasoo siiyey. yani kaniini dhacay ayaa lasoo siiyey waxaa ka wadaa dheedkii hore oo meeshii ku qornaa aa la tirtiray, dheed cusub waa lagu sameeyey, kaniinigina wuu dhacsanaa, dheedkiyaa la bedelay expirekiisa sida yani qofka ii sheego kambanigaas le ugu macaasho aan u badbaadin naf bani aadam, keliya uu rabo inuu uu lacag ka helo. hadda tusaale waad aragtee meelo badan ay gubanayso, yani si loo joogo waxaa leeyahay kambani hiblaay ama kambani hibil uu dabka kaca. misweydiisa sababta? laga yaabee in yani wax dhacsanaya meeshaas lagu iibinayo. yani maa asaaba min musiibatin famaa kasabat aydiikum, musiibo idinma asiibto ilaa adinka wax gacantiina ku geysata mooyaane. yani hadda kambani yani dadka dhan ma wada dhaliilayaan, dadka dhan yani ma wada dhaliilaya. qof waxaa jir ilaahay ka cabsanayo oo yani wixiisa xalaal ay u yihiin oo wixiisa xalaal u gadanayo oo waajibaadkiisa iska gudanayo way jiraan. laakiin kuwa waxaa jiro macaash, kaasna weligood ma horumarayaan oo weligood way dansanaanayaan, weligoodna horumar ma samaynayaan. marka Soomaaliya halaga digtoonaado. haddana cuntooyinka aan usoo laabana. cuntooyinka markaa usoo laaban, tusaale hay-ada wax qaybinaysa lagu leeyahay, hay-ad ayaa wax qaybinaysa sida bur, sokor, saliid yani iyo wixii lamid ah, baasto. waxaad arkay bur oo 3 bil 4 bil ka hor dhacay oo yani dadka la siinaayo.
waxaa arkay baasa 5 bilood ka hor dhacday dadka la siinaayo waxaa arkay bariis 7 bilood ka hor dhacay oo dadka la siinaayo oo markaad kala furtid burka aad kala furtid yacni burkii oo caddaan ahaa oo isku bedelay boorash camal yacni burkii dhanaaba jaale noqday u soo laaban marka baasada waxaa arkay yacni baasad ayagoo jajaban oo kor waxaa ka fuulay yacni kiimikiyadii oo ka samaysnaa ka dhammaaday ayada dhan kor baarix noqday tixran ku dhex dhan yacni ku dhex dhashay ayaa waxaa lagu leeyahay hay-adaa soo dhiibtay yacni deeq oo hay-ad soo dhiibtay waaye yacni ii shaqadii oo dadka yar ayaa loo qaybinaya waxaa la rabaa dadkaasi naftooda in lagu baabi'iyo oo yacni laga takhalluso oo la dhibaateeyo oo la dilo ayaa loogu talagalay marka soomaaliya ka digtoonaad arrintaas hal kaniini ma ugu yara haddaad soo iibsanaysid waa inaad iska fiirisaa dheydka kaniinigaasi haddaad soo iibsanayso gasac toona ah waa inaad iska fiirisaa dheydka haddaad iibsanayso buskud waa inaad iska fiirisaa taariikhda dhicitaankiisa aad iyo aad ayaad umahadsantihiin sida quruxda banaa aad ii daawateen muuqaalkiisa xiga inta aan kulmi doono sidaas iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu